السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قاعد كسر نقضي سود وهذا أصحابي أضمن ذي السلام يا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله. أول عشرين مرة ينكسر هذا الفيديو يا مانتا وحير بنا الشركة رينا نيوس يرو أضف في عنوان مقلي أو قصة بس إنه يرو صوماليد أو إنه كيجو ريا كيجو ليستي كورج كوجو قالسن UK أما لندن. كورجكن waa koorj aad u qaali ah oo only waxa loogu talagalay dadka royalka iyo inta badan gala iyo dadka politicska ku jira waxa loogu talagalay dadka rojka ah ee ka dhashay familada aadka u lacagta badan marka inta badan dadka gala waa dad aad waxbarashadooda u sareyso waxay u tahay laakiinse in yaro Soomaaliya oo la yiraahdo Ahmed Roble ayaa wuxuu ku guuleystay waxay yiraahdeen waa inanka Soomaaliyeed oo ugu horeeyay in history marka taariikhda dib loo eego ee iskuulkan Gala marka inankan yari waxbarashadiisa aad u sareysa wuxuu ku jiraa iskuul ilmada ku jira oo South London ku yaala marka inankan wuxuu ku guuleystay iskuulkaas 19 prime minister baa ka soo baxay iskuulkaas waa iskuulka waxa weeye college waa 6 form waxa lagu talagalay caruurta 17 jir ilaa 18 jirka ah inay galaan waa boarding school waa very expensive waxa weeye 37,000 sanadkii waa laga bixiyaa iskuulkaas marka inanka wuxuu ku guuleystay inuu iskuulka helo kuwa waxbarashadiisa aad u ah inankan family kama dhalan richer oo lacag badan haysta laakiinse wuxuu ka dhashay dad iska caadi ah oo inagoo kale ah oo dadkii Soomaaliya ka soo qaxay ayuu ka dhashay laakiinse waxaan filayaa inay waalid aad u fiican yihiin waayo waxaad ka garanaysaa inanka waxbarashadiisa kor u tahay waxaad ka garanaysaa dad wanaagsan dhaleen marka Masha Allah hambaliyo congratulations baan ku leeyahay Masha Allah aad baan ugu farxay inuu yaro Soomaaliyeed iskuulka saasa galay iskuulkanu waxa la yiri class kasta waxa ku jira 15 qof laba macallimood qoraa u dhiga wuxuu ku yaalaa xaafad aad u qurux badan oo dadka university lacagta aad u haystay rojka loogu talagalay waxa loogu talagalay dadka lacagta badan haysta ee university rojka ah dawladda nimanka ku jira ama prime ministerada soo noqday ama imika ah inta badan wax ka soo baxeen iskuulkan marka Masha Allah aad baan ugu faraxsanahay inay Soomaaliya heerka gaadhay oo ay kamid yihiin dad oo kale u maskax badan waxaan filayaa Soomaalidu dhammaan maskax badan yihiin laakiin inaga isla hoos u dhignoon dadaalin marka good luck baan ku leeyahay inanka yar Ilaahay ha u barakeeyo waxbarashadiisa waalidka kalena waxaan kula talinayaa inay yarkooda la dadaalaan oo inankaas oo kale Ahmed Roble kala soo saaraan oo aynu ku guuleysano haddana maybe sanadka dambe inuu qaar inamadana kamid ah iskuulka galaan isaga waxaan leeyahay Ilaahay diintiisa Ilaahay oo ilaaliyo waa iskuul cadaanka ku badan waxaan filayaa inaan madow badan ku jireen oo muslimiin badan aan gelin xabad mooyaane uma maleynayaan muslimiin iskuulkaas oo kale ay galaan waa iskuul aad u qaali ah waa boarding school macnaha waxa boarding school waxa lagu talagalay inay seexdaan oo joogaan sanadkoo dhan fasaxyada ma garanayo in loo gooliyo inay ka iman karaan laakiinse inta badan waxa loogu talagalay boarding school waa meel la seexanayo laga soo kacayo guri oo kale ah marka Masha Allah congratulations man kule inanka yar Ahmed Roble aad baan ugu farxay markaan ka walahay I was like Masha Allah so good like Ilaahay ha u barakeeyo diintiisana Ilaahay ha ilaaliyo waalidkiisana Ilaahay ha xifdiyo waalidka kalena waxaan kula talinayaa in carruurtooda la dadaalaan oo la fadhiistaan oo waxbarashada ku encourage gareeyaan ku support gareeyaan si generation cusub uu noqdo generation caqli badan oo waxbarashada sareyso intaas maamulteena share gareynayay kulligiin waan idin salaamayaa khayr iyo insha Allah nabad baan idin rajeynayaa maalin wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh